بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يونيفرسال runtii aad iyo aad aan kaga mahadcelinayaa waraysiga kooban oo ku saabsan arrimahaas maalmahan xoogaa meediyaha iyo dadka dhexdiisa qabsaday in aan dadka ka daaweyno idinkana aad ila wadaagtiin waan kaaga mahadcelinayaa intaa kadib dhul sidiisaba waa dhulka xamar jajab iyo caalgaab u dhaxeeyo sidaad sheegaysiin ama la sheegayo dhulkaas anigu sideedaba dhul ma bixin mana siin waxaa la yidhahdaa waxna siismaa la yidhaahdaa waxna waa ku nacfin waxna waa shaqo xilligaas loogu talagalay sideedaba waxaan rabaa runtii aniga waxaan sameeyey warqadayda waa u malaynaya inaad arkayseen wargelinay ahayd wargelin iyo siismana farqigaa u dhexeeyo wargelintuna waxay ahaday in goobaha ay qashin ay dhigaan in la siiyo shirkadda eeko ee xilligaas nadaafadda nagala shaqaynaysa gooba ay qashinka dhigaan kadibna laga sii qaado meelay ayadu leeyihiin iyo meelay ayaga la siinayo iyo meelay ayagu ku nacfinayaan meelay ayagu sayr baan u dhisanayaan iyo midna maahayn ayay ahaaday weliba dee xilligaasi oo hadda ma aqaan warqaddii daraad oo maaragtay afhayeenka uu akhrinayay waxay ahaaday 11 bisha afaraad ayay ahaaday anigu xilka 15 bisha afaraadaan wareejiyey warqaddii guddoomiyaha degmada xamar jajab ee lasoo xiganaya iyadana waxaa ku qoraaday waxay ahaaday 22 bisha shanaad ayay ahayd marka warqadda tala soo jeedinta guddoomiyaha waa dareemaysaa inay ka dambaysay tayda cidda u tala jeedinayaa waa markaas maamulka jooga aniguna maba joogaba ayay ahaaday yaa baxshay iyo yaa dhiibay iyo ma la dhiibi karaa iyo waa la dhiibi karaa iyo duq magaalo awoodiisa maxay la agtahay wax dowladda hoose leeda ma bixi karaa iyo meel nadaafad looga ma la raadi karaa iyo waxaasoo idil waa wax kale walaas kama jiro laakiin muhiimaddu waxay ahaaday dhulkaani cidda bixisay oo siisay shirkadda eeka dhulkaasi wuxuu ahay maamulka iga dambeeyey waxay ahaaday marka in la caddeeyo cidda wax bixisay haddii tayda lagumaba camal falinba lamana cuskan soo ma garan guddoomiyaha hadda cusub waa imuday dekreetu soo saara uu ku joojinaya dhulka ahlan wasahlan guddoomiye xaqa uu leeyahay inuu joojiyo ilaa oo wixii uu ka hubiyo xaqa uu leeyahay laakiin waxay ahaaday dukumiintiyadan oo la cuskanayo in miiska lasoo wada saaro almiino oo midda cidda wax bixisay iyo cidda kale la kala caddeeyo wax la baxsha la caddeeyo qaabka iyo waxay in la caddeeyo laakiin mujmalaad moodaayo mugdi inuu ku jiraan moodaa marka mugdigaas weeyaan waxa culayska keena dadkuna shakiga geliyey taas ay waxaan rabnaa inaan marka aan ka hadlo maxaa farqiga u dhexeeya marka xilliga adiga aad xilka wareejinaysay iyo bixinta dhulkaas waxaa la baxshay dhulkan waxaa la baxshay bishan January 2018 ayaa la bixiyay dhulkoo la siiyey nimanka ayaa la siiyey de waxay ahayd warqadaas wax lagu siiyey in miiska la soo saaro oo waxa la cuskana ay ka mid noqoto marka de January 2018 xilliga buuqa bilowday oo dadku ay faabiyada ay ka qaadeen in dhulka biyaas liberal la dhisanayo waa January waxa la baxshanay waxay ahayd January 2018 January inuu yusuju caalama joogin madaala guddoomiye ma ahayn marka aniga xilliga aan joogay oo la soo xiganayo waxa ka dambeysay xilligii wax la baxshaa ka dambeysay xilliga wargelinta aad soo saaraysa adigu waxaad ugu talagashay milkiyeed ahaan dadkan inay dhulkan qaataan mise in lagu shaqeeyo oo kira ahaa sida tusaale beertana sideedaba beertana maada maamulkiiga horeeya kiriyey waxay ahayd kiro aniga sideedaba dhul dowladda ay leedahay taakaba allah ka dhigay oo aan sifo sharci ahayn anigu kuma xadgudbin manaba midda labaad anigu wargelin marka la leeyahay iyo siismo farqiga u dhaxeeyo dadku inay fahmaan rabaa xilligaasna maba laba soo qaadinba mana dhaqan gelin mana la fulin aniguna xilligan xilka ka degayba ahaydba soo ma garan warqad iga dambaysay ayaa jirta oo dhulka lagu siiyey nimankaas waxay ahayd marka waxa aan rabnay in la soo xigto waxay ahaaday wixii bixintii siismadii in la soo xigtay ahayd nidaamkii lagu siiyey iyo ciddii siisay xal loo siiyey waa wax kale laakiin waxay ahayd warqadaha miiska la soo saaray ee la xiganayo waxay ahayd warqadii dambaysay siismada in la soo xigto maadaama la soo xigtay bishii shanaad 2014 la soo xigtay 2017 bishii April bishii shanaad la soo xigtay waxay ahayd diintii ka dambaysay xataa in la soo xigto maxaa guddoomiyaha xamar jajab wuxuu soo jeeshay tala soo jeedinaya tala soo jeedinta marka uu soo jeedinayo aniga ima soo jeedinayo ma jirinba maamulkayga ma jirin
sama garan maamulka uu soo jeeda maamulkan dambe aheeda cidda wax siisay ee nimankaas dhulka tiray hal la siiyo si ay shaqadaas ugu qabtaanna waxay ahayd maamulka iga dambeeyay ayuu ahaa warqadii cadaynayna waan hayaa gacantan ku hayaa haddii loo baado waa la arki karaa waxay ku qoran tahay waa kana ujeedo siin dhul goormay soo baxday waxay soo baxay 11 bishii koobaad 2018 soo baxay 2018 waxaa ku saxiixan gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee howlaha guud ayaa ku saxiixan ninka la yiraahdo mudane aadan sheekh cali fiido ayaa ku saxiixan oo uga wakiilka ahaa duqa magaalada dhul arrimaha dhulka uga wakiil ahaa ninkaas ayaa siiyey asaana bixiyey marka waxay eeday wax la rabay in la soo xigto waxay eeday haddii wax oro la soo xiganayo waxay eeday in warqadan la soo xigto idaas isma ku qoranta in warqadoo dhan miiska la soo saaro la soo wada xigtana saxay ah haddii la wada xiganayo laakiin intii ugu dambayso wax lagu bixiyay laga boodo kuwa kale oo de zaman ahaayeen xataa ay sama jirinba ama wax lagu qabtaaba aysan jirinna in la soo xigto arintaas ayaan aragnaa in qalad meeshaas oo ka jiro waxa aan rabno marka dadka in laga daaweeyana waa qaladkaas warqada sida saxda ah wax loogu bixiyay lagu siiyey waa tanam oo u baahan cid walba inay aragto gudoomiye markuu yimaado markii waxyaabo tashwiish furo ay jiraan wuxuu sameeyaa xaq wuxuu leeyahay inuu xaqiyo ilaa uu ka hubinayo waxaana sida ay yihiin marka joojintu xaq uu leeyahay qalad ma arko maxaa yeelay inuu xubiyaa loo baahan yahay maxaa yeelay bulshadii qabsatay wax baa la baxshay wax baa la dhiibay wax baa la iibsaday wax baa bulshada dhexdeeda qabsatay marka xaq waa uu leeyahay inuu joojiyo laakiin waxa loo baahan yahay wixii in la hubiyo qaabkii lagu bixiyay yaa bixiyay maxaa looga jeedaa siday waxaan yihiin waxa soo dhan hubsiin uu maxay Soomaaliya waxay tiraahdaa hubsiino hal geelaa la siistaa waa loo baahan marka wixii in la iska hubiyo intaas un baa muhiim ah maxay tahay sababta xilligan ku soo baxay dhulkan kan arrimihiisa laga hadlo adigana lagu soo xigtay waxaa laga yaabaa anigu wixii la soo xigtay aniga maba garanayaba waxa ay shacabku ku wareersan yihiin ay dadku wareersanayaan waxay ahayd Yuusuf Madaalo 2017 bisha afaraad lixdeeda xilka laga qaaday in la soo xigto oo shaqo hadda la isku haysto hadda la qabanayo hawsha hadda socoto in la soo xigto waxyaabay dadku leeyahay inay kamid tahay asi aan la soo xigan ama aan wax laga sheegin sida rasmiga ah cidda wax u bixisay aan la sheegin warqadan xataa aniga warqadahaas la sheegay xataa ma cuskanayso waxay ku tusay marka kuwi waxaas waarid maba ahaynba maxay gudoomiyaha tala soo jeedintiisuna waxay aaday 2017 bisha shanaad oo anu ama xilkaba ka tagaba ayay ahayd tala soo jeedintu xilligan wax la baxshana waa 2018 bisha koobaad waa marka tan eed waxaan in la xigtay wax la xiganayo Yuusuf Jumcaale la soo xigtay Madaalo min zaman shaqada ka tagay waa waxa dadka Soomaaliyeed ay ku wareersan yihiin taas ayna tahay waxa uu soo weydiiyay Universal inay dadka ka daaweyso si dadka walaaca ay ku jiro waana ku maasantiin arintaas ayaan rabnaa marka inaan dadka u cadeyno inaan anigu shaqo ku lahayn wax aan baxshan aysan jirin wax siismaana aysan jirin laakiin in qaabka wax loo gudbiyo loo soo gudbiyo inay aaday khalal fanni inuu jiraan malaynaa yani hadda xataa ismeel wax ku talagal ah ama Madaalo lagu xumeynaayo ayuu ula jeedaa anigu ismaleey laakiin waxa laga yaabaa inay kuwan ka qarsoomeen laga yaabaa kuwan ka qarsoomintay dib isugu laabtaan maamulka ha soo saaraan ha arkaan dadka u gudbiyaan intaas ayaan ugu dhihi lahaa والله دي دوق مقالة دي wax la weydiitay ka dhul oo baxshay waxa waaye cid sheegi karta ma jirto maxaa yeelay waxa uu joogo duq magaalo inuu dhul bixiyo intaas soo dhilaan sharciyeyn intaas soo goofan sharciyeyn intaas soo dhul dan guudoon anigu xaaji dhulkooda oo aan baxshay dhulkoodaagna waxaan uga faa'iideynayaa shacabka Soomaaliyeed maadaama qashin qub ay noqoto baddi loo dalxiis tagay kawaanka bari iyo jaziira intaba qashin lagu shubaa waxaan ugu bedelay dhul 184 boos ah oo sifaynta batroolka gadaasheeda ku yaal ayaan ugu bedelay dawladda hoose isla markaasna 8 boos oo isla goobta dawladda ku taalo in dawladda hoose loo dhiso guriga looga dhiso ayuu heshiiskana xooyal dawladda hoose ayuu yaalaa xafiisyadu yaalaa oo laga heli karaa dhulkaasi aan baxshay waxaan ugu bedelay 184 boos ah isla markaana waxaan ku heshiinay in 8 boos loo dhiso dawladda hoose Yuusuf Jumcaale loo dhismaynin cid kale loo dhismaynin dawladda hoose loo dhisay ma laga faa'iideysan mise laga ma faa'iideysan waxa la weydiinaa cid iga dambaysa dhulka 184 boos ma la xifdiyay ma la haya ma laga faa'iideysta 8 boos ma la dhisan lama dhisan maxaa loo dhisi waayay dadka iga dambeeya la weydiinaya laakiin aniga waxaan ugu talagalay in dawladda hoose guriga loo dhiso ay u bilaawdaan bal wax dawladda hoose ay leeyihiin xiliyadan dambe inay jiraan bal inaan abuuraan rabay qorshaygu ahaa
waana ugu talagalay ciddii dhisaysan heshiisaan la galnay 8 boosan waan u barnaynay isla markaana 184 boosan waxaan ugu talagalay in qashin weynaha magaalada laga qaado ee la geeyo meel ka fog magaalada isla markaana waxaan heshiis aan kula jirnay warshad qashinka maarayso ee qashinka wax ka soo saar ayuu ay qorshahayna iyadoo barnaamijka ii socdo ayaa halka qaadisa timiday kadibna dadkii iga dambeeyeen ku wareejiyey laakiin sida looga faa'iidaystay walaalahay ayaa la weydiinayaa aan wax fara ka maayo ma jirto maya